ninkan waa John McAfee milyaneer ay dunida ka yaabtay ahna aasaasaha mid ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyad ee ugu caansan qarnigii la soo dhaafay waa nin si daacad marka loo hadlo haystay wax walba oo u suuragelin karay in uu ku noolaado nolol xasiloon farxad iyo caafimaad leh balse doortay taa cagsigeed waa balwadle ciyaal suuq ah. Hello there. My name is John McAfee and I do what I want when I want. lagu tuhunsan yahay dil dhowr sanana ahaa baxsad ka cararaya dawlado badan. How many people at the checkpoint? BDF, please. kaaga sii daran waxaa soo idil kadibna noqday musharax madaxweyne ee dalka Mareykanka. bishii Juun 9keedii 2019 isagoo ku dhumaalaysanaya jasiiradda Cuba ayuu wuxuu bartiisa Twitter soo dhigay digniintan waxaan gacanta ku hayaa feelal ku saabsan musuqmaasuqa ka jira dawladda markii ugu horeysay waxaan magacaabayaa magacyo iyo xogo gaar ah waxaan ku bilaabayaa saraakiil CIA-da ka tirsan iyo laba madax oo Bahamian ah laga bilaabo maantay haddii la ixiro ama la iwaayo in ka badan 31 terabyte oo xog dambiyeed ah ayaa loo sii deyn doonaa saxaafadda bil kadib July 23 2019 John waxa lagu xiray dalka Dominican Republic isla maalinkaasina waxa bartiisa Twitter la soo dhigay haddii John uu seego jekankiisa xiga waxa bilaaban doona dhacdooyin aanan waxba ka qaban karin mar haddii ay bilowdaan. John wuxuu xog sir ah la wadaagay shakhsiyaad ku kala nool daafaha caalamka anigu ma garanayo cid ay yihiin ama halka ay joogaan tuna waxayna sii deyn doonaan inta ay gacmaha ku hayaan haddii John la waayo 3 maalmood kadib John McAfee waxa laga sii daayay xabsiga balse haddana mar kale 3 bishii Oktoobar 2020 John waxa lagu xiray gudaha dalka Spain isagoo raba in uu u baxsado dalka Turkiga kadib 6 bilood oo uu ku jiray xabsi ku yaala magaalada Barcelona ee dalka Spain waxa la soo dhigay muuqaalkan. It is certain that I will spend the rest of my life in prison because the United States wants to use me as an example. 5 maalin kadib muuqaalkan xaaskii John waxay barteeda Twitter ku soo qortay John daacadnimadiisu waxay u sababtay in uu dhibaato kala kulmo dawlado iyo mas'uuliyiin musuqmaasuqiin ah sababtuna ay tahay hadalkarnimadiisa iyo in uu yahay qof diida in la cabsi geliyo ama la aamusiyo hadeer madaxda Mareykanka waxa ka go'an in John uu ku dhex dhinto xabsiga si uu ugu noqdo tusaale cid kasta oo ka hadasha musuqa ka jira hay'adaha dawladda 3 maalmood kadib waxa laga helay isagoo ku dhex dhintay qolkiisa xabsiga. John McAfee found dead today in a prison cell in Spain. John McAfee has reportedly been found dead in his Spanish jail cell. And wanted fugitive John McAfee died by suicide in a Spanish prison cell on Wednesday. maxaa meeshaasi ka dhacay intan kadib miyuu u dulqaadan waayay dhibaatooyinka badan iyo cadaadiska nolosha oo uu go'aansaday in uu nafta isdhaafiyo mise waxaa jira sir madow oo ku qarsoon aan kula wadaago nolosha waalida ah iyo geerida shakiga badan dhalisay ee milyaneerka John McAfee. John McAfee wuxuu ku dhashay dalka Ingiriiska sanadii 1945 hooyadii waxay ahayd gabar u dhalatay dalka Ingiriiska halka aabihiina uu ahaa American taa oo keentay inuu ku barbaaro gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa la sheegaa in aabihii uu ahaa aabe aad u xun khamriga si xun u isticmaala abusive ah oo si daran u dilay canugiisa ilaa ugu dambeyn uu aabihii isku dilay gacantiisa markan John waa qof da'yar ah inkastoo dhacdadan xun ay reerkooda gelisay khalkhal badan haddana wuxuu ahaa mid u dhabar adeega waxaana u suura gashay in mustaqbal qurxoon uu dhisto isagoo waxbarashada ilaa heer PhD ka qaatay kulliyadda mathematicska inkastoo marka noloshiisa dusha sare laga eego ay u muuqatay mid wanaagsan haddana ma ahayn mid gudaha ka qurxoon sida uu sheego wuxuu yaraantii ahaa qof lazy ah waxbarashada aanan daneyn kaaga sii daran bilaabay isagoo college ka dhigta in uu iibiyo muqaadaraadka kookayinta loo yaqaan uguna yeera in taa ay ahayd ganacsigiisii ugu horeeyay. The drug dealing was really your first foray into entrepreneurship. Yeah. Well, it is entrepreneurial. It's everything. It's salesmanship. waana xiliyadan marka uu bilaabay isticmaalka muqaadaraadyada kala duwan sida LSD, khamri zaa'id ah, kookayinta iyo wax kasta oo la mid ah oo uu gacanta ku dhigi karo. balse marka taa la iska indhatiro noloshiisa sideeda kale waxay ahayd mid u kala kacsan isagoo bilaabay inuu programming uga shaqeeyo kambaniyo waaweyn sida kambaniga caanka ah ee NASA halka uu ka qaadanayay mushaaraad aad u wacan. mar la sii marayo bartamihii 80-yada aadna lagu kacsanaa kombiyuuteraadka guryaha la dhigto ee loo yaqaan
PC-ga ayaa waxaa ninkan u soo baxday fursad noloshiisa u qaaday heer cusub. Wuxuu gacanta ku dhigay nuskhada program antivirus ah oo lagu magacaabo Brain oo ay xilligaa soo saareen rag jooga kambaniga uu ka shaqayn jiray. Programyada noocan ah waxay ahaayeen kuwo aad u cusub oo aanan horay uga jirin saaxadda kombiyuutarka. Wuxuuna meeshaasi ka arkay fursad cajiib ah isagoo ugu dambeyn sanadii 1987 aasaasay shirkadiisa McAfee Associates oo soo saartay antiviruska caanka ah ee McAfee Antivirus oo hubaal haddii aad horay u isticmaashay kombiyuutar Windows ah aad ku aragtay kombiyuutarkaaga. Ninkan wuxuu programkiisii ka dhigay mid free ah isla bishii ugu horeysay ee suuqa uu soo geliyayna waxay isticmaalayay in ka badan 4 milyan oo qofood ilaa heer shirkadaha waaweyn ee soo saara kombiyuutarska ay sanadii ku bixinayeen in ka badan 5 milyan oo dollar si kombiyuutarkooda ay ugu soo dejiyaan. Programkan wuxuu noqday astaanta antivirusyada qarnigaasi wuxuuna ninkan ka sameynayay hanti aad u badan iyadoo bilowgii sagaashamiyada hantidiisii lagu qiyaasay in ka badan 80 milyan oo dollar balse markan ayay u bilowdeen dhibaatooyinka. waxaa sanadii 1994 laga tuuray madaxtinimada shirkadiisa isagoo lagu qasbay in uu isaga iibiyo sheeriskii u haray ee uu ku lahaa shirkadda 100 milyan oo dollar. kadib markii uu aqbalay misna uu gacanta ku dhigay hantidaasi xad dhaafka ahina sidee ayay kula tahay in uu ku noolaan doono muxuuse lacagtan tirada badan ku bixin doonaa? What did you do with the money? I wasted it like everybody does money. wuxuu iibsaday in ka badan 9 guri, gawaari xad dhaaf ah, diyaarado qaas ah iyo farshaxano qaali ah. marka la isdhahay ninkan wax u dhiman ma jirana wuxuu guri aad u weyn ka iibsaday xeebta New Mexico isagoo meeshaasi ka furtay iskuul uu dadka ku barayo meditationka. adigu ma jirin wax u harsanaa oo uusan sameynin ninkan ilaa dadka qaar ay ka yaabeen sida uu hantidiisa u qasaarinayo misna uu damac ka soo galo laftirkooda. iyadoo wixii ka dambeeyay sanadii 2008 dad badan ay bilaabeen in ninkan ay dacweeyaan iyagoo ku sheeganaya dhib uu xili hore u geystay ama lacag ay ku lahaayeen iyo wax la mid ah. marka ay dacwooyinkii faraha ka baxeen misna ay ku bateenna wuxuu ku dhaqaaqay kaarta aan caadi ahayn isagoo xaraashay dhammaan guryihii, gawaaridii iyo waxyaabihii kale ee uu lahaa. Everything, including his beloved airplanes, Winnebago's exotic art collection, even the gold elephant and dinosaur skull went on the block. balse waxaan oo dhan waxay ahayd jilin oo wuxuu ka damacsanaa in dadka ay aaminaan in uu faqiiroobay sidaa darteedna uu isaga xaraashayo gurihiisa si dadkan dacwada ka daba wada ay u qorsadaan oo damacooda uu uga haro. wayna u soo wargashay midda oo malaayinkii dollar ee xaraashkaasi uu ka sameeyay wuxuu la aaday wadan xeebeedka Belize si uu halkaasi ugu raaxaysto jawi deganna uu ugu noolaado. balse midda uusan ogeyn ayaa ahayd in goobtan ay noqon doonto meesha ay noloshiisa soo rogi doonto misna ka dhigi doonta dambiile baxsad ah. ugu horeyntii McAfee wuxuu guri weyn ka iibsaday xeebta Belize balse muddo yar uun kadib wuxuu u wareegtay guri kale oo uu ku yeeshay keenta. goobtan ayaa u ahayd sheebaar iyo meel uu ku abuuro dhirta antibioticska loo yaqaan ee cudurrada lagu daaweeyo. wuxuuna goobtan isugu keenay gabar ku takhasustay cilmiga dhirta iyo daawooyinka oo madax ka ahayd sheebaarkan. sidoo kale 7 gabdhood oo ugu yeeri jiray in ay yihiin girlfriendskiisa iyo rag hubaysan oo ilaala u ah isaga. mar la marayo bishii Abriil 2012 qaar ka mid ah madaxda booliiska wadanka Belize ayaa waxay damceen in McAfee ay laaluush badan ka qaataan maadaama uu yahay nin hantidiisa laga warhayo. balse markii ay u suurageli weeday oo gabi ahaanba uu ka diiday ninkan waxay weerar ku qaadeen gurigii uu ka degnaa keynta oo uu ku lahaa sheebaarkii weynaa iyagoo ku eedeynaya in ninkan uu gurigan ku dhex sameeyo draagis iyo waxyaabo la mid ah. When I refused to pay an extortion for $2 million, and a week later, the gang suppression unit destroyed my lab. inkastoo wax draagis ah aan meeshaasi laga helin gurigiisa iyo sheebaarkiisiina ay burburiyeen haddana ma jirin cidda dusha iska sii saartay sababtoo ah waxay ahayd mid ninkan lagu yaqaano isticmaalka draagiska badan. intaa kadibna McAfee iyo ciidankiisa ilaalada waxay dib isaga soo laabteen gurigii uu xeebta ku lahaa meeshan oo haddana madaxa kula geli doono dhib ka sii weyn midii hore. McAfee waxa daris la ahaa nin isna u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Gregory Fall oo si lamid ah halkan u soo doontay nolol xasiloon balse aysan u suurageli doonin maadaama uu nin rabshad badan daris la noqday. Greg waxa aad u dhibay eeyihii uu lahaa McAfee oo tiro ahaan gaarayay 9 eeyo kuwa oo 24 saac qaylo aan afkooda iscelin sidoo kalena cid kasta oo meesha soo maro weerara ilaa heer uu gurigiisa si nabad ah u isticmaali waayo. taa oo keentay in Greg ugu dambeyn uu go'aan ku gaaro in uu mushkiladan dhinac isku dhaafsiin doono oo isagu gacmihiisa
arrimihiisa ku xalin doono mar haddii ninkii lahaa eeyahan uusan diyaar u ahayn in uu xaliyo muddo gaaban kadibna waxa eeyihii McAfee loo dhigay hilib sumaysan oo ay wada cuneen dhammaantoodana wada dilay midna waxay aad uga caraysiisay McAfee isla habeenkii xigay ee maalinkii la dilay eeyihii McAfee waxa gurigii uu degnaa Greg u dhacay qof taa oo nasiib xumo ku dhex dilay gurigiisa dabcan inkastoo bilaa shaki ay u muuqan karto in qofka ka dambeeya dilka Greg uu yahay ninkan haddana McAfee wuxuu gabi ahaanba iska fogeeyay in uu ku lug leeyahay wixii habeenka ku dhacay Gregory Fall. No, I did not do murder. This is, let me make this perfectly clear. I had nothing whatsoever to do with the murder of Gregory Fall. balse sheekadu waxay ka sii dartay kadib markii mid ka mid ah shaqaalihii McAfee uu qirtay in ninkan uu u dhiibay lacag tiro badan misna uu amray in uu siiyo nin uu isagu ugu shakiyay in uu ahaa kii dilay Gregory Fall. Following morning, sometime around 9 o'clock, John called me. He said, take this money, $5,000, and go put it in this guy's account. Then I realized that this $5,000 was for him to do that. To do what? To kill the guy. haddana isla ninkan wuxuu muddo kadib ka soo muuqday muuqaal la soo dhigay barta YouTube ee McAfee uu leeyahay isagoo ku tilmaamaya dhammaan waxyaabihii uu ka sheegay wareysigii hore in uu ahaa been abuur misna dadkii waday wareysigaasi ay u soo bandhigeen lacag gaaraysa $10,000 si uu wax uun uga sheego McAfee. $10,000 in Belize is a lot of money for 30 minutes. Who will go against that? So I started to think what I can improvise, what lies I can fabricate to make it credible for her. المهم kadib markii McAfee lagu eedeeyay dilka ninkan wuxuu markiiba u baxsaday wadanka Guatemala isagoo ka cararay dalka Belize hase ahaatee baxsadkaasi ma noqon mid siiraaga oo dhowr bilood kadib wuxuu ugu dambeyn ku soo dhacay gacanta booliiska dalka Guatemala balse sida aad filan karto ninkan si fudud iskuma dhiibeen oo wuxuu markii gacanta lagu dhigayba iska dhigay sida nin wadnaha laga qabtay misna tacbaan ah oo suuxay taa oo keentay in markiiba lagula cararo isbitaalka. McAfee was rushed to a hospital complaining of chest pains. Quite a scene was created as an ambulance took him from an immigration detention center. waxaana ugu dambeyn loo soo dhiibay dawladda Mareykanka inkastoo McAfee marna aan lagu soo oogin dambi dil haddana waxa ugu dambeyn sanadii 2005 lagu xukumay in uu bixiyo magdhow gaaraysa $25 milyan kadib markii uu dib u helay xorriyadiisana wuxuu bilaabay in uu dib u soo dhiso noloshiisa. wuxuu noqday nin si balaaran uga soo muuqda warbaahinada Mareykanka iyo barihiisa social media ilaa heer sanadii 2016 uu iska soo sharaxay xilka madaxweyne ee dalka Mareykanka dabcan wax natiijo ah kama keenin halkaasi balse wuxuu saameynta ugu weyn ka geystay dhanka lacagaha cryptocurrency-ga loo yaqaano ee uu aad ugu dheerigelin jiray in dadku ay maalgashtaan misna ay tahay wadada kaliya ee uga baxsan karaan in dawladda ay mushaarkooda billaha ah canshuurto hadal uu muddo kadib si xun uga shalayn doono. Because when privacy coins are widely used, governments will no longer be able to collect income taxes. And I've always said this is a good thing. sida aad hadaladiisa ka dheehan karto ninkan wuxuu aad u necbaa canshuurta mushaarka ee ay dawladda Mareykanka ka qaado muwaadiniinteeda necab oo keliyana ma aha wax canshuur ah ma dhiibin tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Mareykanka gudaha dalka Mareykanka midan waa dambi oo qofka ku muteysan karo muddo xabsi ah ama in la wareego dhammaan hantidiisa kadib markii uu bilaabay McAfee in uu meelaha ka sheego canshuurta uusan bixin waxay dawladda Mareykanka qaas ahaan hay'adda canshuuraha ee IRS bilowday sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd ninkan taa oo keentay in markiiba uu McAfee si kadis ah uga baxsado wadanka Mareykanka isagoo u cararay dalka Spain oo uu damacsanaa in uu uga sii gudbo dalka Turkiga waana tii 3 Oktoobar 2020 lagu dhex qabtay gudaha dalka Spain misna la dhigay xabsi ku yaala magaalada Barcelona halka oo 6 bilood ee xigtay lagu dhex marsiiyay nolol aad u qaabtaran iyadoo la qorsheynayay in gacanta loo soo saaro dawladda Mareykanka balse marna ma dhicin mida oo 8 maalmood kadib maalinkii laga soo duubay muuqaalkan uu ku sheegay in Mareykanka ay rabaan dilkiisa ama in xabsi daa'in ah ay marsiyaan tusaalan ay uga dhigaan dadka isagoo kale ee ka soo horjeeda bixinta canshuurta iyo waxyaabaha la midka ah waxa laga soo dhaxelay qolkiisa isagoo dhintay iyadoo sababtana lagu sheegay in uu isagu isdilay balse ma suuragal baa mida oo isaga miya isdilay mise ragga uu u xirnaa ayaa jeclaysan in ninkan uu badunidan la sii joogo kadib markii aan dib u daalacday afkaarta ay dad badan ka dhiibteen geerida ninkan waa kuwan qodobada ugu muhiimsan ee igaga soo baxay haddii aan ku hormaro fikradda ay inta badan dadka qabaan ayaa ah in
in ninkan dilkiisa ay ka dambeeyaan dowladda Mareykanka ama ugu yaraan rag ka tirsan dowladdaasi waxay dadkan aaminsan yihiin in sababka dhan ee ninkan loogu raajoogay ay tahay feelashii musuqmaasuq ee uu balan qaaday in uu sii dayn doono ragga uu sirtaasi ka hayayna ay ugu dambeyn ugu daba tageen xabsiga kadib markii la shaaciyay geerida McAfee waxay xaaskiisa sheegtay in muddo saacado ka hor dhimashadiisa markii ay la hadashay ninkeeda uusan marna muujin niyad ama aynan ku arag calaamado muujinaya in uu rabo in naftiisa uu isdhaafiyo taacagsigeed waxayba ku tilmaamtay in uu diyaar u ahaa misna ay wada qorsheynayeen sida ay u wajihi lahaayeen maxkamadda markii dib loogu soo celiyo dalka Mareykanka haddii saacado yar ka hor uu qof yow ahaa maxaa hal goor niyadiisa bedelay oo keenay in uu isdilo dhanka kale fikradda labaad ee ay dadka qaarkii qabaan ayaa ah in uu isagu isdilay ugu horeen ninkan aynu ka hadlayno waa 75 jir ku socda daawo u bartay nolol xad dhaaf ah iyo in uu si xad dhaaf ah u isticmaalo daraagiska kala duwan iyo tumasho diin aan lahayn oo haddii ay nolosha ku adkaato wax walba ay ka suura gasho intaa waxa u sii dheer inkastoo dowladda Mareykanka ay caan ku tahay dilalka dadka ay u aragto in ay halis ku yihiin oo sirtooda banaanka keena haddana hadallo yar oo uu ninkan soo dhigay internetka miya ah kuwa u qalma in ay gacmahooda ku wasaqeeyaan dilka ninkan